daawadayaal halkan aan ku sugannahay waa dhaamka weyn ee magaalada Labisagaala ee degmada Sawanaag dhaamkan muddooyinkii u dambeysay ayaa waxa ku dhacday inay bacdi taalay dhamaato ay go'go'do saan xoog uga helo dhaamkan xilligii la sameeyay iyo baahida ugu weyn ee imka haysata waxa goobta igula sugan Cabdirashiid soo dhawow dhaamkan goorma la asaas waxa la asaasay 77kii dayactirta imka haysaana waa bacdi oo ka dhamaatay marka in bacdi nala dayactiro waa doonayna biyaha dadku isticmaalaya darka weyn in dar sare oo eegle biyaha dadka iyo la kala soco halkaas inoo kala soconeen noo kala socon waan doonayna halka laga sameeyo taagi sare oo biyaha dadku isticmaalo gacanka iyo dhoobaqaad ceelka lagu sameeyo laba jiin oo naga yar waxaysan oo saddex jiin baa yaalay laba jiin oo naga waxaysanna ina si iyagana nolo gacan mariyo labada maqsine aan ku jirno iyo kaasoo wax ka yar dhiban yihiin nolo raaciyo hadaa la yiraahdo waxaad ka warantaa muddada ceelka la sameeyo muddo aad fog 1977kii waqti dheer weeye inta ka dambeysay maxaa wax dayactira iyo wax ka qabasho lagu sameeyay waxa lagu daray kala saddexaad waxa lagu daray laba dargeel baa lagu kordhiyay iyo xabadi jiina iyo laba suuli intii ugu dambeysay laga qabtay taas ahayd dad waxa lagu kala tagnay annagu intaasaanu qabanay wixii idinka dhimanaya kalena dawladda kala xiriir la sameeyo kordhinto marka hadii la wixii la idin kari karo ee la idinku dari karo ku kordhisto xiriirka halka ka wada sidii uu baan imka leenay hadii aan cidii noogu timaada waxa naga dayactir noogu kordhiya ceelkan markuu biyoobo intaan la godada ka faa'iideysan jiray sayntu biyadihan jiray wuxuu noo hayaa inta imka marka ku fadhiyo sagxada wuxuu ku hayn karaa ilaa 3 bilood meelaha haddii bacda la dhigi lahaana maba dhamaanayo 12 sano 12 bilood uu haynaya biyaha deegaankiisu uu ballaaranayay waa BOA-da waa balowga waa waxa weeyaan ilaa bacaanood waxaan ku leeyahay ilaa higlada balashire gaas intaas buu nalabtaa kolka deegaankiisu uu ballaaranayay ilaa dabaqorayaal oo kala ka soo qayb gali kara xaaladda imka waa see dabyalaaneed baahida waa dhaag waa baleeg lebida balashire bal kaliil qoton jiidaas oo dhaw biyalada injineer Cabdirashiid oo raali waxa uu kamid yahay dadka deegaanka ka soo jeeda maanta halkan safarkan ugu helinaya bal Cabdirashiid xaaladii deegaanka wada aragtaa waad soo martay ceelkan baan maanta joognaa bal ka warbixi ceelkan iyo xaaladiis bismillaah sallallahu alayhi rasuulillah horta waxa weeyaan arkaynaayo baahida waxa weeyaan baahida abaarada arlada aynu maartay ilaa qolacda bayna ka soo bilowno ilaa iyo salax bayna soo marno saasaynu ku nimid Labisagaala aynu ku nimid waxa weeyaan ma garanaysaa miiga naqaani ma aha waxa weeyaan ma garanaysaa horta dadku waxa weeyaan waxay cunaan malaad hay'adiyo ma cunto baa la yar gaarsiiyaa laakiin waxa weeyaan xoolihii ay ku noolaan lahaayeen ma jiraan waxay afka saaraan ma jirto waxa weeyaan laba sanadood waa abaar laba sanadood marka waxa weeyaan magarasa waxaan oran karnaa miigi ay dadku ku noolaayeen ay isku filaayeen ay maaragtay xoolahooda dhaqanayeen ma jiro miigaas uu gudaayay marka inta imika magaalooyinka degan imika miig waa magaalooyin inta magaalooyinka degan in la tacaalo oo magaranaysaa xoolo dhaqatada nimada iyada si kale aynu uga warrami doonaa si kale looga guuro mooyaan laakiin wixii magaalo ah ee magaranaysaa deegaana tuulooyinka in la shaqeeyo weeyaan magaranaysaa baahidoodii laga shaqeeyo marka waxaynu balligan aynu joognay Labisagaala balligan yara warbixin hadaan kaas iyo horta balligan sida uu sheegay inankii iga horreeyay 77kii marka la aasaasay 77kii waxa weeyaan magaranaysaa waa balliyadii ugu horreeyay horta balligan waxa weeyaan magaranaysaa noociisa magaranaysaa waynu imika inanku wuxuu sheegay in xuduudda la raaciyay 77kii ilaa ka ku xiga uu yahay reebad khaatimo ku yaalo insha Allah waynu soo eegi doonaa laakiin waxa weeyaan deegaankiisa wanaag noociisa waa noocii magaranaysaa aan ugu horreeyay aragno sababtoo waxa si casri u sameeysan yahay dararkii uu leeyahay ilaa xad meeshii biyo ka soo galayaan oo magaranaysaa yara farsamaysan uu leeyahay magaranaysaa
bacdi baa la dhigay oo de haba googode waxa weeyaan magarasa mashiinkii biyaha tuurayay dayrkii baa loo sameeyey waxaan waxa weeyaan waa Hafeer Dam noociisa aan hore loo arag oo magaranaysaa xitaa Itoobiya dee Hafeer Damada waxa la keenay magaranaysaa 12 wixii ka dambeeyay ayaa Itoobiya Hafeer Damada laga hirgeliyay halkan waxa weeyaan marka Hafeer Dam ka horeeyay waxa magaranaysaa dee casri oo magaranaysaa aan hore loo ogeyn marka waxa weeyaan laakiin waxba ka dhiman sidaan markaan Hafeer Dam casri marka laga hadlaayo isoo garo dhoobo reebta oo kale casri ma aha oo magaranaysaa in yaro inta isabad yar dhigaan bay way casri way tahay laakiin waxa weeyaan magaranaysaa dhoobo reeb caadi ma aha oo dhoobadii ka reebaysa balligii marka balligii dhoobo badan bay soo gelisay dhoobo reebta in loo hagaajiyo waa loo baahan yahay balligii in dhoobo qaado waa loo baahan yahay mana laha maartay dunuufti biyasaarkii ama wixii afar falooga loo dhanay kaasina uu ka dhiman yahay marka waxoogaa gaas maartay casriyeynta oo baahan laakiin sidiisa hore marka 7 la sameeyay waxa ugu casrisan buu ahaa deegaanka